Guuymaystii, Sheeko Soomali. Beri waxaa jiray oday inan keliya leh. Waxay ahaayeen faqiir oo waxay ku noolaayeen waxa aabbuhu ku iibiyo suuqa. Toddobaad walba aabbuhu wuxuu beeri jiray midho. Markay u baxaan in ku filan, suuqa ayuu ka iibin jiray. Inantiisu maskax fiican ayay lahayd, waanay naxariis badnayd. Had iyo jeer waxay jeclayd inay dadka caawiso. Maalin maalmaha ka mid ah, intuu aabbaheed suuqa ku maqnaa, inantu waxay maqashay sanqadh dibadda ah, daaqadda agteeda. Waa maxay waxaasi talow? Ayay tidhi. Waa maxay sanqadhaasi? Isla markiiba waxay aragtay guumays daaqadda ag maraysa. Quraanjooyin ayaa la socday. May ogeyn in guumaystu ay runtii tahay amiir la geliyey jismiga guumays. Amiirku muu la hadli karaynin inanta si uu ugu sheego waxa ku dhacay. Quraanjooyinku way jiidayeen iyaga oo baalasha xoog u haya. Inantu may fahmin waxay quraanjooyinku u jiidayaan guumaysta, laakiin way arkaysay in guumaystu ay ka baqanayso. Markaa way baxday si ay u caawiso. Quraanjooyinka eri ayay istidhi. Markaasay la hadleen. Maxaad samaynaysaa? Guumaystan waddankayagii ayaannu geynaynaa. Wuxuu cunay boqorkayaga cuntadiisii. Markaa waxaa la saarayaa maxkamad. Miyaydaan arkaynin in guumaystu gaajoonayso oo baqanayso? Ayay tidhi. Dan kama lihin. Qofna looma ogola inay cunaan boqorka cuntadiisa, ayay quraanjadii ku jawaabtay. Ma isweydaarsanaa? Aniguna midhaha beerta aabbahay ka baxay ayaan ku siin, adiguna sii daa guumaystan miskiinadda ah oo iidaa aan haystee, ayay inantii soo jeedisay. Sidaasi ma fiican tahay? Maya, guumaystu waa xayawaan duurjoogto ah. Ma aamini karayno inaanu dib ugu noqonayn. Waxaan idinku ballan qaadayaa inaanu dib cunto idinka xadin, ayay inantii tidhi. Ballanta ka bacdi, beertii aabbaheed ayay tagtay oo midho ka soo goysay ay siiso quraanjooyinka. Iyaguna way sii daayeen guumaystii oo inantii ayay siiyeen. Guumaystii way ku faraxday inaanay la joogin quraanjooyinkii, laakiin waxay ka walacsanayd sida odayga inantiisu ay ula macaamili doonto. Fikrad kamay haysan inay deeqsiyo tahay iyo inay bilaa naxariis tahay. Inantii guumaystii ayay qaaday. Qunyar bay salaaxday oo ka dhunkatay madaxa. Dabeedna gurigii ayay geysay. Waxay siisay cunto diiran iyo meel ay seexato. Galabtii markuu aabbaheed ka soo noqday suuqii, wuxuu arkay guumaystii guumaysu arko ugu qurux badnayd. Halkeed ka keentay guumaystan? Ayuu yidhi. Waxaan ka reebay quraanjooyin doonaya inay kaxeeyaan oo maxkamad saaraan, sababtoo ah cuntadii boqorkooda ayuu cunay. Midhihii beertaada ayaan wax ka siiyey, iyaguna guumaysta ayay ii daayeen. Markay seexdeen galabta, guumaysta waxbaa ka sii ahaa. Si dhaqso ah wuxuu bilaabay inuu dhalaalo. Dabayl yaroo qiiq leh ayaa martay. Dabeedna sidii sixiroo kale wuxuu isku beddelay amiirkii. Inanta raxmaddeedii ayaa ka saartay jismiga guumaysta. Subaxnimadii dambe, markay odaygii iyo inantiisii tooseen, waxay la yaabeen in nin qurxoon oo dhalinyaro ah gurigooda joogo.
yaa tahay maxaad gurigayga ka qabanaysaa ayay mar wada yidhaaheen magacaygu waa cali waxaan ahay amiir nin khaalid la yidhaa oo aayaday aabbo dhashay oo shar ah ayaa guumaysi iga dhigay wuxuu doonayaa inuu noqdo boqorka domaanja laakiin wuxuu og yahay haddii aan joogo inaanu weligii noqon karaynin boqorka waxaan u baahanahay inaad i caawisaan qorshe ayaan soo jeedinayaa ayay tidhi inantii waxaanu kugu qarin gawaariidda aabbo way ku wada heshiiyeen qorshaha oo damceen in amiirka ay ku ridaan gawaariidda dabeedna qariyaan odaygii suuqii ayuu aaday sidii caadiga ahayd markuu gaadhay suuqii amiirkii meeshuu ku qarsoonaa ayuu ka soo saaray baxse haddaba ha istaagin ilaa aad qasarka aabbahaa gaadhid ayuu ku yidhi amiirkii galabtii markuu ka soo noqday suuqii wuxuu inantiisa ku yidhi waxaad maanta samaysay wax naxariis leh waad i sharaftay mahadsanid aabbo ayay tidhi markay cashadoodii u fadhiisteen waxay maqleen albaabka oo la garaacayo albaabkay fureen ninbaa kadinka taagnaa warqad haya warqaddan waxay ka timid boqor yaasiin adiga iyo inantaada ayaa leh ayuu ku yidhi galkii ayay fureen boqorkii ayaa qasarkiisa ku casuumay inay kula cunteeyaan mahadsanid boqorka u sheeg inaanu iman doono ayuu aabbuhu yidhi maalintii dambe inantii iyo aabbaheed waxay u diyaargaroobeen inay qasarka tagaan way yaro walaacsanaayeen waanay khajilayeen sababtoo ah faqiir ayay ahaayeen oo dhar fiican oo ay xidhaan may haysan laakiin kamay maqnaan casuumadda qasarka qasarkii ayay soo galeen dabeedna boqorkii ayaa loo geeyey amiirkii ay caawiyeenna wuu joogay oo isna wuu soo dhoweeyey aragtidiina waan ku farxay ayuu amiirkii yidhi anana sidaas si leeg ayay inantii tidhi iyadoo khajilaysa soo dhowaada waxaan qasarka idiinku casuumay inaan idiinku mahadnaqo sidaad u caawiseen inankaygii keliyahaa ee amiir cali maanaan arkin oo maqlin muddo 3 bilood ka badan waxaan islahayn dib uma arkaysaan naxariistiinnii ayaa noo soo celisay markaa waxaan doonay inaan labadiinaba idiin mahadnaqo ayuu boqorkii yidhi waannu idinka guddoonay ayuu odaygii yidhi inantayda sidaas ayaan ku soo koriyey inay caawiso qofkii u baahan caawis inantaada ayaan inankayga u doonayaa ayuu yidhi boqorkii amiirkii aad buu u farxay sababtoo ah way qurux badnayd waanu jeclaa inanta waxaan rabaa inaan guursado inantaada sababtoo ah waxay leedahay naxariis iyo kalgacayl badan ayuu yidhi amiirkii isagoo qoslaya waxaan kuugu ballan qaaday inaan daryeelo oo si wanaagsan u xanaanadeeyo ayuu yidhi amiirkii haa waad guursan kartaa ayuu aabbihii yidhi isaga oo farxaansan oo walaacii kafaalo qaadashada ilmihiisa keliya ayaa ka dhacay iyo warwarkii siduu cunto ugu heli lahaa haddii ay raalli ka tahay inantaydu ayuu ku daray raalli ma ka tahay aabbo ayuu inantiisii ku yidhi haa aabbo raalli baan ka ahay ayay inantii ugu jawaabtay waan ku guursan haddii aad iigu ballan qaado inaad aabbahayna daryeesho ayay tidhi inantii may doonayn aabbaheed in la ilaabo haa dabcan waannu daryeelaynaa maqsino u gaara qasarka gudihiisa ayaa la siin lacag badan dhar badan iyo wuxuu u baahan yahay oo dhanna waa la siin ayuu yidhi boqorkii amiirkii sidii buu ku guursaday inantii abidkoodna si farxad leh ayay u noolaayeen sheekadan maxaa laga baran karaa wanaagad fashaa si aanad filayn ayuu kuugu soo noqdaa
haddii aad ku cusub tahay channelkayaga fadlan taabo subscribe like amba share si aad noo taageerto